الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد soo dhawaada dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka qalin jabinaya dugsiyada sare ee laga yaabo inay galaan imtixaan dawlo kadib dib u dhacii COVID-19 waxaan halkaa idinkugu soo gudbinayaa ka shaqaynta imtixaankii xisaabta ee 2019 sanadkii hore la galay imtixaankaasi waxa uu ka koobnaay laba qaybood. qaybta koobaad waxay yeeday 20 su'aalood oo doorasho ah 40 buundo lagu saxayo 40 marks kadibna part 2 ayaa jiray oo 15 su'aal laga shaqeynaya ah. maanta waxaan duubistan koobaad uga shaqeynayaa 10 su'aalood oo kamid ah 20ka multiple choice ka ah. su'aasha koobaad waxay u dhaceysay sida tan xogta halkan ku qoran mode-keedu waxa uu noqonayaa mode waxa la yiraahdaa nambarada halkan kugu qoran nambarka ugu soo noqnoqoshada badan. waxa ugu soo noqnoqoshada badan 7 oo soo noqotay 3 jeer. number 3 jeer soo noqday oo 7 ahayn halkan kuma yaalo. hadii uu jiri lahaa mid 3 jeer ka badan soo noqday asigaan qaada lahaynay. mid 7 jeer soo noqnoqday oo 7da ku soo noqnoqosho ahna haduu jiri lahaana waan isla qaada lahaynay. labada number oo isku soo noqnoqoshada ah magada 7 ayaa ugu soo noqnoqosho badan oo 3 jeer soo noqotay. marka mode-ka lagu weydiinayo ee xogtan waa number 7. hadii aad imtixaan ka haysato waa jawaabta C ku xusan. su'aasha labaad waxay aheeday function-kan derivative-kiisu waxa uu noqonayaa 3x square. derivative-ka muxuu noqonayaa? derivative waxaa loo sameeyaa jibaarka ku dhufo horgalaha kadibna jibaarka halka jar. hadda jibaar waxaa la dhahaa xarafkan aad haysato variable-ka amba x ha noqdo amba t amba s. xarafku wuxuu noqdo raba ha noqdee numberka kor saaran ayaa waxaa la dhahaa jibaar. midka ku hor qoranna waxaa la dhahaa horgale. marka derivative markaad sameynayso jibaarka ku dhufo horgalaha jibaarkana halka jar. halkan waxaa kasoo bixi doona 6x power 1 bas 6x waa jawaabta ee ku xusan. maxaan sameynay jibaarka oo labada ah ku dhufo horgalaha 3 waa 6 x-ta soo qor laakiin jibaarkii labada ah halaad ka jaraysaa oo 1 ayuu noqonaa. okay su'aasha saddexaadna waxay noo aheeday 8 factorial waxay la mid tahay 8 factorial furfur siyeed wixii ka hooseeya ku dhufo oo ilaa hal ka gaarto sida furfur 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 sidaas ay furmaysaa waana furfurka dhig ku xusan. su'aasha afraad waxay ahayd simplify. waxaad fududeysaa 3 minus I plus 2 plus 3I waa complex number oo la isku darayo. complex number wuxuu leeyahay real party imaginary party real party imaginary party. qaybta numberka caadiga waxaa la dhahaa real number qaybta ayda wata imaginary. marka la isku darayo oo plus ay tahay real number lagu daraa waa haddii isku darsoomayaan. imaginary party-na imaginary party ayaa loo geeyaa lagu daraa haddii isku darsoomayaan. haddii isku darsoomayaan waxaan ka wadaa laba number waxaa la isku dari karaa markay isku calaamad yihiin oo ay positive wada yihiin ama ay negative wada yihiin. laba number oo kala calaamad duwan mid positive iyo mid negative la iskuma dari karo oo ay kala go'ayaan. marka hadda 3 iyo 2 waa wada positive waa 5 minus I iyo positive I way kala go'ayaan waxaa soo haraya positive 2I horgalayaasha kala go'a dabcan. marka jawaabtu waxay noqonaysaa 5 plus 2I sida optionka A ku xusan weeyaan. su'aasha shanaadna waxay aheeday cos 120 degree waxay la mid tahay dabcan 120 degree saad ogtiin waa quadrant 2 quadrant 2 na cos waxay ku tahay negative. marka dabcan marka 120 special angles-ka xafidsanta ka mid ma aha 30 60 45 iyo quadrantal angles-ka sida 0 90 180 273 ka mid ma aha. laakiin reference angle baan ku raadi karnaa maadaama quadrant 2 ay tahay 120 180 imisa dhiman waxaa dhiman 60. marka reference angle-ka 120 wuxuu noqonayaa 60 oo adoo yiri waa cos 60. calaamadda 120 quadrant 2 negative ay noqon doontaa insha Allah. marka cos 120 waa cos 60 ka shaqeeya waana half calaamadda negative ay noqonaysaa. jawaabta B ku xusan waaye
su-aasha lixaad waxay eeday standard deviationka xogta halkan ku qoran wuxuu noqonayaa standard deviationku formulahan uu lahaa alright sum of x minus mu square loo qaybsheen marka miyudu waa miinki oo aad ku heli karayso inaad nambaradan isku dadarto kadibna intay yihiin aa u qaybido marka waa 6 number aan filayaa 6 number isku dardar wadartooda waxay noqonaysaa 60 haddaa 6 u qaybisna waa 10 miinki waa 10 marka waxaad u baahan tahay si aad formula u isticmaasho inaad x minus mu sameydo kadibna x minus mu square tablekan jadwalkan fiiri marka x waa nambaradan waaye 6 9 10 halkan ku qoran nambarada x minus mudu waa 10 nambaradanoo laga jaray mudi ayagaa horey ogow 6 laga jara 10 waa minus 4 9 laga jaray 10 minus 1 10 ka jar eber sidaas u wad kadib kan isku waa gray x minus mu isku waa gray mid kasta waa sidan kadib formulahan sum of x minus mu square waxaa la isku darayo waa safkan isku dar markaa isku darto wuxuu ku noqon doonaa 60 kadib 60 aad waxaad u qaybisaa n intay madaxa ka yihiin dabcan waa 6 number marka waxay noqonaysaa 60 loo qaybshay 6 oo 10 radical 10 haddii laga saaro 10 haddii xid laga saarana square root-kana waa 3 jajab almost jawaabta ee ku xusan waaye oo 3da ah saan filayo raalli ahaada ninka halkan jiifa ood u jeedaan caajisnimo wuxuu ku gaaray in baradhadii loo soo dubay ee bogga loo saaray uu ka wehsado inuu afka gashado marka adigoo raalliya ha noqonin sidii ninkan caajisnimadii aysan dhulka ku dhiganin iska dadaal haddii standard deviationkan oo kale waxaa jira hab loo geliyo calculatorka haddii xataa variancega a hesho xataa variancegii aad ka saaraysaa xididka marka somehow jawaabaha qaarkood calculationkooda hadduu ku dhibo xataa maadaama ay doorasho tahay calculatorka waad isticmaali kartaa calculatorka sida loo geliyo standard deviation variancega waxyaabaha noocaasa please isku da inaad barato calculatorka sida loo isticmaalo qof kaaga roon weydii haddii aadan aragna xataa xilli aan ku jirnaa google-ka iyo youtube-ka iyo waxaa weydii sida loo geliyo standard deviation iyo variance iyo waxaa calculator sida loo geliyo insha allah waxaan rajeynaya in caajisnimo aysan wax kaa hadlayn sida ninkan oo wax badan oo doorasho ah imtixaanka waxay noqonayan wax calculator lagu keeni karo haddii aadan xasuusanin macnaha calculationkoodii calculatorka isticmaali kartaa marka try to know how to use the calculator please it's good idea su-aasha toddobaad waxay noo aheeday five combination 2 combinationkani waxaan u malaynayaa formulihii aad isticmaaleysaa ahaa markaas combinationka haddaa furta wuxuu noqonayaa 5 factorial loo qaybshay 5 minus 2 factorial 2 factorial sidaas expressionka ee ku qoran waayo marka formulaha isticmaal waa formulihii combinationka oo meeshii n 5 aa taal meeshii r-na 2 okay 8 waxaad soo saartaa qiimaha tan 7 by over 12 7 by over 12 dabcan waa 105 tan 105 marka 105 105 waxaa loo qori karaa saad ogtahay compound angleska 105 waxay ka imaan kartaa 60 lagu diro 45 oo waxay isu bedelaydaa 60 lagu diro 45 60 waa by over 3 lagu diro 45 by over 4 waa tan a plus b oo noqon doonta naqa jirtay tan a plus tan b loo qaybshay 1 minus tan a lagu dhigto tan b marka tan 60 kani dabcan tan 60 waxaan filayaa inay tahay radical 3 over 2 yes radical 3 tan 45 na waa 1 hadhowta radical 3 plus 1 dheh halkan waa radical 3 kana 1 waa radical 3 times 1 na waa iska radical 3 marka value expressionka wuxuu ku noqon doonaa sidan waa gartay haddii aad conjugate-ka 1 minus radical 3 kor isku dhufato kan oo plus laga dhigay aad kor isku dhufatana wuxuu ku noqonayaa sidan good okay marka radical 3 haddaad ku garaacdo dabcan labadan hoose conjugate isu yihiin isku dhufashadoodu dhib ma leh hore ku dhufo waayo dambeed ku dhufo laakiin labadaa kore radical 3 qaybtan ku dhammeey haddana 1 qaybtaa ku dhammeey waxaa kuu soo baxaysa sida tan oo ku timiday radical 3 lagu dhufto 1 waa iska radical 3
radical 3 lagu dhufto radical 3 radicalka baxaya waa 3 haddana 1 kusoo garaac 1 ku dhufo 1 waa 1 1 ku dhufo radical 3 waa radical 3 labada number isu geey waa 4 radical 3 na horgalayaasha 1 waa 2 radical 3 labada number kala go -2 dan waxay hooseeyo guud waa 4 tay hooseeyo tahay sidoo kale 2 radical 3 hooseeyo tahay 4 -2 loo qaybo iska -2 -1 marka -2 radical 2 radical 3 waa jawaabta ee ku xusan waa gartay waa yahay waxaan rajeynayaa inaad casharada ka faa'iideysato wax badan iska akhrido wax badan dhegeysato sidii mouskan aad u fiiqato sagaalaad waxaad simplify gareysaa cos 2x loo qeybsho cos x minus sin x cos 2x oo double angle saddex formula leeyahay mid ka mid ah formulayaasheedina wuxuu ahaa cos square x minus sin square x oo ahaa tii cos 2x aan furo kadib hooseeyaha cos x minus sin x soo qaado haddii kan la sii furo wuxuu noqonayaa cos x minus sin x oo ku dhacsan cos x plus sin x labadan isla bixi waxaa kuu soo haraya cos x plus sin x waa jawaabta d ku xusan waa xagaag su-aasha tobanaad waxay yahay derivative-ka functionkani waa derivative waa jibaar ku dhufo horgalaha jibaarka hal ka jar dabcan hadda horgalihii waa 1 -5 lagu dhufto 1 na waa iska -5 hal ka jar -5 laga jara hal waa ka jaray waxay wada noqdeen oo marka isku darsoomaya waa -6 gartay jawaabtu waa sidaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin haddii aad danaynayso barashada heerarka kala duwan ee xisaabta iyo maadooyinka sayniska ah ama aad tale iyo tusaalooyin wanaagsan aad ii hayso waxaad igala soo xiriiri kartaa telephone numberka hoos ku qoran waxaad igala soo xiriiri kartaa telephone numberkan halkan ku qoran aad u mahadsantihiin nasiib wacan waan idin